madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa sheegay in Turkiga uusan u ogolaan doonin xubinimada NATO ee Sweden iyo Finland isagoo intaa ku daray in dalalka ay ku guuldareysteen inay mowqif cad ka qaataan argagixisada. Ku ormayno wadamada cunaqabataynta ku soo rogay Turkiga si ay ugu biiraan ururka amniga ee NATO ayuu Erdogan ku sheegay shir jiraa'id oo ay si wadajir ah u qabteen dhigiisa Algeria Abdulmajid Tebboune oo ka dhacay caasimadda Ankara Isniintii. Erdogan ayaa sidoo kale sheegay in wafdiga Sweden iyo Finland aysan isku dhibin ibaatanka Ankara si ay Turkiga ugu qanciyaan inay ansixiyaan dalabkooda NATO. Jimcihii la soo dhaafay madaxweynaha ayaa sheegay in Turkiga uusan si wanaagsan u eegin Sweden iyo Finland dalabka xubinimada NATO isagoo intaa ku daray in qaar ka mid ah wadamada Scandinavian-ka ay si wax ku ool ah u yihiin guryaha martida kooxaha argagixisada. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa muujiyay sida ay ugu walaacsan yihiin in Finland iyo Sweden ay ku biiraan NATO Axaddii isagoo sheegay in wadamada Scandinavian-ku ay taageeraan kooxaha argagixisada ee YPG iyo PKK. Bal aynu eegno qodobka la isku hayo ee Turkiga uu ugu diidan yahay Finland iyo Sweden inay ku biiraan NATO. Xubin ka tirsan NATO muddo 70 sano, Turkiga sida dhammaan xubnaheeda kale waa inay ogolaadaan dalal kasta oo cusub oo ku soo biiraya isbahaysiga. Muddo 10 sano ah, Sweden iyo Finland waxay qaateen mowqif siyaasadeed oo dhexdhexaad ah oo gobolka, laakiin iska hormaadka Ruushka iyo Ukraine ee socda ee bilaabmay 24 Febraayo ayaa kiciyay isbedel ku yimid qaabkooda. Shacabka iyo siyaasiyiinta intooda badan labaduba hadda waxay jecel yihiin inay ku biiraan isbahaysiga NATO iyadoo labada dal ay sheegeen inay doonayaan inay xubin ka noqdaan NATO bisha May. Si kastaba ha ahaatee, Sweden iyo Finland si wanaagsan uguma aysan jawaabin codsigii Ankara ee ahaa in loo soo gacan geliyo in ka badan 30 argagixiso 5 sano ee la soo dhaafay, sida ay ilo-wareedyo wasaaradda cadaaladda u sheegeen wakaaladda Anadolu Isniintii. In ka badan 35 sano oo olole argagixiso oo ka dhan ah Turkiga, kooxda argagixisada ah ee PKK ayaa mas'uul ka ah dhimashada in ka badan 40,000 oo qof oo ay ku jiraan haween, caruur iyo dhalaan. Ra'iisul wasaaraha ay isku hayaan dalka Liibiya Fathi Bashagha ayaa isaga baxay magaalada caasimadda ah ee Tripoli saacado kadib markii uu isku dayay in uu gudaha u galo magaalada oo ka dhashay iska horimaadyo. Xukuumadda iska soo horjeeda ee uu magacaabay baarlamaanka fadhigiisu yahay bariga Liibiya ayaa xalay galay magaalada Tripoli, balse saacado kadib ayay isaga baxeen Talaadadii markii uu dagaal ruuxay caasimadda sida uu sheegay xafiiska Bashagha. Dhawaqa hubka culus iyo rasaas toos ah ayaa subaxnimadii Talaadada ka dhacay guud ahaan caasimadda iyadoo iskuulada la joojiyay isu socodka dadka iyo gaadiidka oo sida caadiga ahaana ay aad u yaraadeen. Si kastaba ha ahaatee, deegaanada dhexe ee ka fog iska horimaadyada dhanka waqooyi bari ee Tripoli ayaa waxaa ka jira caddeemo yar oo muujinaya dhaqdhaqaaqyo ciidan. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinacyada dagaalamay oo ku aadan khasaaraha ka dhashay dagaalka. Bashagha waxa uu Tripoli soo galay habeen hore isaga oo wehelinayaan maleeshiyaad isbahaysi ah oo rajo ka qabay in uu la wareego dowladda, balse waxaa si degdeg ah uga hor yimid xoogga la safan Abdulhamid Dbeibah kaas oo lagu magacaabay Xanaan ee Qaramada Midoobay taageertay sanadkii hore. Dbeibah ayaa marar badan ku celceliyay in xukunku ku wareejin doono oo kaliya dowlad la soo doortay. Dagaalka ayaa waxa uu sare u qaaday cabsida laga qabo in uu dib u soo laabto foodadii soo jirtay tan iyo sanadkii 2011 kacdoonka shacabka ee NATO ay taageereen ee lagu riday Muammar al-Gaddafi. Xukuumadda Dbeibah ayaa loo igmaday inay Liibiya ku hogaamiso doorashooyin la qorsheeyay inay dhacaan December-tii la soo dhaafay, balse dib ayaa loo dhigay muddo aan la cayimin. Bishii Febraayo, baarlamaanka Tobruk ayaa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Bashagha u magacaabay ra'iisul wasaare. Bishii Maarso, maleeshiyaad taageersan Bashagha ayaa durba soo dhoobmay cirifyada caasimadda, taasoo sare u qaaday cabsida laga qabo iska horimaad soo afjara xabad joojin jilicsan oo jirtay tan iyo Oktoobar 2020. Bashagha waxaa taageeray Khalifa Haftar, dagaal ooge fadhigiisu yahay bari, kaasoo hogaamiyey isku daygii fashilmay ee lagu doonayay in lagu qabsado Tripoli 2019 ilaa 2020, kaasoo gacanta ku haya dhowr xarumood oo saliid ah oo muhiim ah. Kaca xukuumadda Bashagha ee dalka ku yaala waqooyiga Afrika ayaa siinaysa laba maamul oo iska soo horjeeda. Madaxweyne Joe Biden ayaa amar ku bixiyay in dib loo soo celiyo joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya si ay gacan uga siiyaan maamulada maxalliga la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Biden wuxuu ogolaaday codsi uga yimid wasaaradda gaashaandhigga oo ahaa in ciidamada Mareykanka ee ku sugan bariga Afrika dib loogu celiyo Soomaaliya, ayuu sarkaal sare oo Mareykan ah u sheegay warbaahinta Isniintii. In ka yar 500 oo askari ayaa ka qayb qaadan doona
ayuu yiri sarkaalka, isagoo intaa ku daray in waqti yar ay qaadan doonto in la gaarsiiyo Soomaaliya. taasi waxay wax yar ka yartahay tiradii hore ee 750 askari oo Mareykan ah oo sanado badan ku sugnaa dalka iyagoo fulinaya howlgalo ka dhan ah Al-Shabaab, balse laga saaray xilligii Trump oo fadhigooda ahaa dalalka dariska la ah Kenya iyo Djibouti. bishii December 2020 wax yar ka hor inta uusan xafiiska ka tagin, Trump waxa uu amray ka bixitaanka Soomaaliya isagoo ka soo horjeeda talada hoggaanka sare ee ciidamada Mareykanka, ayuu yiri sarkaalku. wixii markaas ka dambeeyay Al-Shabaab nasiib daro waa ay sii xoogeysanayeen, ayuu sarkaalku hadalkiisa ku sii daray. mas'uulkan ayaa soo jeediyay in go'aanka Biden uu la xiriiro ammaanka ciidamada Mareykanka marka loo eego doorashada Axadda ee madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kadib muddo sanad ka badan oo xasilooni daro siyaasadeed iyo dhibaato abaareed ka jireen halkaas. hogaamiyayaasha Soomaaliya ayaa sanadihii u dambeeyay si joogto ah u taageerayay iskaashiga ay la leeyihiin ciidamada Mareykanka ee dagaalka kula jira kooxaha xagjirka ah ee Islaamiga ah. sarkaalka ayaa sheegay in Washington ay weli ku kalsoon tahay in maamulka cusub uu sii wadi doono, isagoo u hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee la doortay. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ku booriyay in uu horumariyo ciidamada ammaanka si ay ugana hortagaan argagixisada oo ay si buuxda mas'uuliyad amni ugula wareegaan howlgalka midowga Afrika ee ku meel gaarka ah ee Soomaaliya.